taladeedu waxay noqon lahayd haddii ay ina raadisid kuu fududahayna inaa heshid waa laga yaabaa adduunkan wax walba ayaa dhici karo. waxaa laga yaabaa inay gabadhaas xabsi ku jirto, waxaa laga yaabaa inay daruuf kale ku maqantaa, waxaa laga yaabaa habeenkii aad isbarateen inaad telefoonka laga qaaday ilaa haddana mobil la-aan ay tahay iyo guriga ku xayran tahay. wax walbaa dhici karo. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kusoo dhawaada youtube janaalkayga. youtube janaalka daawanaysa maahan official. fadlan haddaan ugu cusubtahay subscribe, like, comment, share. haddii aan nala joogtayna aad iyo aad umaadsanta. haddaan ugu soo biiraysidna oo kusoo dhaweynaynaa dadka igu soo biirayna waxaa leeyahay soo dhawaada. ininka banankeyni waaye qalbi furan iyo niyad furan. kusoo dhawaada baan leeyahay. so asxaabta maxaa idin wadaa maanta maliyad baa qiso ila soo wadaagay, weliba qiso jacayl oo asaga ku dhacday. marka wuxuu idhahay qisada jacayl ayaa igu dhacday, waana qiso haaf marka talona wuu u baahan yahay wuxuu sameeyo. qisada waan iga sheekeyn doonaa, aniga noo soo akhristay, idinka nala taliya, anigna fikirkayga wixii taa waa siin doonaa. haddii ugu soo qoro waxaa kula tali leedahay wiilkan haddii aad qisadiisa dhageysatid please comment u soo reeb si uu asagana ugu qanco maadaama uu daawanayo ama fikirka dadka kala duwan uu yacni fikirka doorto. marka asxaabta waxaan leeyahay haddana ila socdo, qisadii waa bilaabi doonaa. soo dhawaada. so qisadii saan ayay ku bilaabanaysaa. waxay ahayd goor maqrib ah, cadceeduna ay sii dhacayso, cirku saa-id ayuu u madoobaa, daruur ayaa saarneed oo aada u badan, waxaana socotay neecaw aada u udgoon oo saxan saxa roob ah. waxaan kasoo baxay xaafadda anigoo u socda suuqa, waxayna si kadis ah indhahaygu u qabteen gabar aada u qurux badan. waxay lahayd midabka loo yaqaano masciideedka, aada ayay u qurux badneyd. waxay lahayd indho qurux badan oo waaweyn iyo sunniyo aada u madow iyo weliba af qurux badan. waxaan istaagay meel horteeda ah, kadibna waxaa u fiiriyey si saa-id ah, weliba aragti naxariis leh. kadibna xoogaa ayaan sugay inta ay dukaanka kasoo bixaysay, kadibna waan soo daba raacay. xoogaa tilaabo ayay boobsiisay iyadoo isoo fiirinaysa igana shakisan, kadibna tilaabadii ayaan sii kordhiyey ilaa aan ku dhawaado. kadibna waan salaamay ilaa aan saddex mar ugu celiyey. kadib ayay intay isoo eegtay ayay igu tiri maxaa kaa caawiyaa. aniga oo ka cabsanayo ayaa idhi walaal ma isbaran karnaa adoo raaliya. waxay igu tiri maxaa iska baranaa, maxaase ahayd. waxaan ahay wiil walaalkaya oo Soomaaliyeed, gayaankaagana ah oo jecel inuu ku barto. kadib muran badan iyo wada hadal dheer way iga ogolaatay, wayna iisoo dabacday. waxaan idhi abaay macaan, magacaaga ma ii sheegi kartaa. aniga magacaygu waa Hebel, waxaan deganahay xaafadda labaad, gaar ahaan California. kadib waxaan ku idhi intee degan tahay magacaasi. waxay iigu jawaabtay magacaygu waa Heblaayo, waxaan deganahay xaafadda koowaad, gaar ahaan xaafadda madaxtooyada. waxaan dhahay sharaf, waxaa laga yaabaa dib inaynan isku arkin ee nambarkaaga isii. hadal dheer kadib way iga ogolaatay inay isiiso nambarkii, kadibna waan ismacsalaameynay. waxaana ku idhi waan kusoo wici doonaa insha allah, is aragti dambe iyo ismaqal xiiso leh. waana ka tagay, waxaan imaaday xaafadda, waana wacay telefoonkii aan kasoo qaatay gabadha, maadaama qalbigii aan ku hayay aada iyo aadna aan uga helay. gabadhii ayaa igu soo laalaabatay ilaa aan moobilkeedii ka waco. kadibna wuu dansanaa nambarkii. nasiib xumo waan iska seexday anoo niyadda ku hayo oo isleh berri ayay kaa qaban doontaa, ayay daaran doontaa. laga yaabay inuusan dab u lahayn ama aysan jaajarsan, marka berri ayaa wici doontaa. anoo niyadda iiga jirto ayaan seexday. subaxii markaan soo kacay, waxa ugu horreeyay aan qabtay waxay ahayd nambarkii aan gabadha kasoo qaatay. maadaama ay niyaddeydii gabadha ka bixi weysay ayaan wacay, isla sidii wuu dansan yahay. anigii waan wareeray, waan shakiyey. waxaan is yidhi nambarka qalad buu lagu siiyey mise gabadhii ayaa wax ku dhaceen. kadib waxaan is yidhi way shidan doontaa, ha degdegin.
waan sugay, waxaan wacay maalin kale, waxaan wacay habeen kale. waxay maalinba maalin ii dhiibtay, waxay igu gaartay ilaa 3 bilood ayay igu gaartay. Telefoonkii maalintii la siiyey ilaa hadda wuu dansan yahay. Gabadhiina jacayl dhaba ayaan u qaaday, ilaa haddana ma hayo, niyadeydana kama aysan bixin. Aragtidii ugu horreysay ayaan ku jeclaaday, niyadeydana kama baxdo, sikin ayay usoo gashaa. Gabadhii meeshii aan isku baranay maalinna kama baaqdo, saas ay tahayna ma arko, ilaa haddana niyadeyda kama aysan bixin. aad iyo aad ayaan u jeclahay. qofkii hal maalin aan arkay ayaan san u jeclaaday. waxaan sameeyana ma aqaano. maxaan sameeyaa walaashayhani? ila taliya adiga asxaabtaada, fikirkiinana waa ii muhiim. saa wax u akrinaya indhaha ay xanuuneen wallaahi waa ka xumahay. qisada waa ila dhageysateen, asxaabta waa arkayseen. asxaabteyda waxaa rajeynayaa inaad lasoo talisiin wiilkan. wuxuu ku haboon jaceylkiisa miyuu ka samraa, mise wuu raadsadaa, mise qaabku u raadin karaa? wax walba oo fikirkiina ah lasoo wadaaga, commentiga ugu soo qoro. ani ahaan fikirkayga waxaa weeyaan, qof aad jeceshahay weliba hal waqti iyo hal maalin aad ku jeclaatay, qalbigaagana ka bixila. wallaahi waxaan ku dhihi lahay ha quusanin, raadi qofkaas. maalin maalmaha kamida inaa heshid ayaa laga yaabaa, ilaa aad ka ogaato qofkaas inay tahay qofkii lagugu talagalay iyo inaysan ahaynin. haniyad jabin oo raadi ilaa aad ka heshid, sababtoo ah qofka qalbigaaga jecel yahay haddaadan helaynin, qalbigaagii wuu dhibaatoonaya, waana xanuujinaysaa. ani ahaan taladeeda waxay noqon lahayd, haddii ay ina raadisid kuu fududahayna inaa heshid waa laga yaabaa. adduunkan wax walba ayaa dhici karo. waxaa laga yaabaa inay gabadhaas xabsi ku jirto, waxaa laga yaabaa inay duruuf kale ku maqantaa, waxaa laga yaabaa habeenkii aad isbarateen inaad telefoonka laga qaaday, ilaa haddana mobil la-aan ay tahay iyo guri ku xayran tahay. wax walbaa dhici karo. marka anaga go-aan iskama qaadan karna, laakiin an waxaan kugula talin lahay, meesha aad joogtid hadday tahay meesha aad gabadha ku baratay, ana taladeeda waxaa weeyaan inaad raadisid, si kasta kuu qaadato inaad raadisid. haddaa aweysid kadib ayaad go-aanka labaad qaadan kartaa, oo ah inaad ilowdid. qofkii aadan helaynin, qalbigaaga waa inaa markaas dejisa oo u sheegtaa inuusan qofkaan helaynin ama qof jira uusan ahayn. sida qof dhintay, sida looga sabro inaa uga sabartid ayaa rajeynayaa. jacayl kaloo qurux badan iyo nasiib qurux badan waa ku rajeynayaa. soo asxaabta waxaan leeyahay, ha ilownin inaad subscribe dhahdin, like noo saartiin, comment qurux badanna kasoo baxsatiin. wiilka walaalkiinana talo wanaagsan ayuu niga rajeynayaa. dabcan wuu dhageysan doonaa mise wuu daawan doonaa qisadiisa, commentigana wuu arki doonaa. please commentigana iyana kula soo wadaaga wiilka walaalkeena wixii la gudboon. ani fikirkaygana waa intaas, kulay waan dhiibtay. soo asxaabta waxaan leeyahay, videoga xigeeta ku kulmeyno. sidaas iyo nabadgelyo. bye bye.